بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mid ka mid ah howlaha asaasiga ah ee aadanaha ahna waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha aadanaha oo dhan muuqaalkan ayaan kaga hadli doonaa hadduu eebeedmo faa'iidooyinka shaqada ee nolosha aadamaha macnaha shaqo runtii waynu wada ogsoonnahay wayna wada naqaanaa waa wax kasta oo gacanta lagu qabto ama qalab kale lagu qabto si faa'iido ama dan laga lahaa looga gaadho shaqadu sidaynu ognahay waxay gabi ahaanba muhiim u tahay nolosha qofka taasi oo keenta faa'iidooyin badan kuwaasi oo kala ah in qofka shaqeeya uu aqoon helayo iyada oo waliba khibrado badan uu siyaadsanayo qofka shaqeeya wuxuu sidoo kale noqonayaa qof anfacay naftiisa iyo bulshadiisa qofka shaqeystaa wuxuu ka qayb qaadanayaa dhimista shaqo la'aanta bulshada dhexdeeda inta haddii aan kaga soo gudubno shaqadu waa mid ka mid ah siraha rajada sababta ah waxay qofka dareensiisaa qiimaha uu leeyahay qofka shaqo la'aanta ayna wuxuu la mid yahay qof lumay oo aan garanin wuxuu sameeyo sidaas daradeed wuxuu dareemayaa inuu yahay kaliya qof ku tirsan dadka kale haddaba haddii aad u fiirsato wadamada hanti ahaan safka hore kaga jira caalamka waa dalal ay dadkoodu jecel yihiin ama bulshooyinkoodu jecel yihiin shaqadu waa mishiinka ama dhaqaajiyaha guusha shakhsiyaadka iyo ummadaha qofka shaqeeya uu ka kalsooni iyo fursad farxad horumar badan yahay midka aan wax amal ahaynin sida aynu soo tilmaannay sababaha ugu muhiimsan ee keena horumarka ummadaha waxaa ka mid ah shaqada fiiro gaar ah shaqooyinku waa ay noocyo badan yihiin mid maskax u baahan iyo mid muruq u baahan iyo mid labadaba u baahan haddaba haddii aan isla mawduucan inagoo ku jira aan jaleecno bulshadana Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanka waxaad arkaysaa iyada oo shaqadii la qalad fahmay waayo waxaan ognahay inay shilal badan ama dhalinyaro badan dhamaysteen jaamacadihii haddana aanay wax amal ahaynin ka kaalay deegaankeena Soomaalidu waa deegaan ee badhigay khayraadka noocyadiisa kala duwan waana deegaan la tartamaya deegaanada kale ee dalka sidaas oo ay tahay haddana haddii xaqiiqda laga hadlo bulshadanu diyaar uma aha inay shaqooyinka qaybihiisa kala duwan qabtaan imka tusaale ahaan deegaanka waxa ka socda dhismayaal ma arkaysid badanka iyadoo ay Soomaali ka shaqaynayso didigada waxaad arkaysaa iyadoo ay ka shaqaynayaan dad aan u dhalan deegaanka wadooyinka waxaad arkaysaa iyadoo ay dad kala dhisayaan sidaas oo kale leedkii iyo biyihii ayaad arkaysaa iyadoo ay dad kale faraha ku hayaan dugsiyada sare waxaad arkaysaa iyadoo macallimiin aan deegaanka u dhalan wax ka dhigayaan haddaba waxaasi oo dhan iyadoo ay jiraan daliisha waxa dusha u ridanaya isla bulshadeenna waayo markii aan gabnay oo aan shaqayn weynay ayay bulshooyin kale u soo shaqo doonteen oo ay booskeennii buuxiyeen taariikhda ummadeenna waxay ahayd ummad howlaheeda ka adag oo wax kasta isku dubaridata balse hadda haddii xaqiiqatan bulshadeennu sida ay hadda ku sii jirto wax waliba faraha ayay ka bixi doonaan haddaba adiga maxay kula tahay sidee bulshadeennu uga shaqayn kartaa gaar ahaan dhalinyaradu fursadaha iyo shaqooyinka kala duwan ee ka jira deegaanka baaxadda weyn gabagabadii shaqada markaan u dayno dhanka diinta islaamka runtii meel weyn ayay ka joogtaa waxa kale oo kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo sheegayaa nabiyadii inay soo shaqayn jireen suuqyada mari jireen wama arsalna min qablika min rasulin min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq nabiyullahi daawud وأكيد برتتماي وعلنا له الحديد مركز شقادة إسلامك ميل وين بيك جوكتا عمر روح أركان المساجد كفردية أو سكفردية أو قرآن لا فرديين فردية أو صبح يوك وريا محاضو فردي وعبادي سنية وياكم مصروفية ولالكي شقينا يا walaalka baa ka khayr badan buu yiri ka fiicane ka bax sayd qorsh